waana loo sheegay lacagtaad ku xash lahayd inaad noo soo siisay biyo waad mahadsantahay waad mahadsantahay kun goor baad mahadsantahay Edna Adan University and Hospital ayaa deeq booyada biyada oo ka kooban 39 booyadood ah gaarsiisay deegaanada hoostaga gobolka Hawd kuwaas oo kala Baligubadle, Gumburaha, Baargo, Warta, Jabaaqe, Dirfacle, Habaasweyn, Qalax, Balle Cabane iyo Sayla Bari. deegaanada deeqdan biyaha ah la gaarsiiyay ayaa waxa xilligan ka jirta abaar baahsan iyo biyo la'aan soo food saartay dadka iyo xoolaha deegaanadani ku nool. ugu horreyn safarka iyagu waxa uu ka bilaabmay Hargeysa halkaas oo maamulka Edna Adan ay ku kala dirayeen booyadaha biyaha gaarsiinayay deegaanadaasi si gurmad degdeg ah loo gaarsiiyo dadka haraadan ay saameysay abaartu. Mustafa Xasan Daahir gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Edna Adan University ayaa ka warbixiyay deeqdan biyo dhaaminta. jaamacadda Edna bishan horaanteedii 17 booyadood baynu gaarsiinay deegaankan gobolka Hawd gaar ahaan inta magaalada Hargeysa ku soo dhow. jaamacadda iyo dhakhtarka waxaa looga bartay mas'uuliyad iyo inay ka jawaabaan baahiyaha culus ee aan u sahlanayn dadka caadiga ah inay wax ka qabtaan. jaamacaddu adeegyada ay qabato waxaa ka mid ah in bulshada wax lala qabto. hore waxaan u gaarsiin jirnay caafimaad annagoo tuulooyinkooda intaan ugu tagno adeegyo kala duwan oo caafimaad siin jirnay isla markaana dawooyin u qaybin jirnay. maalintii dhaweyd 17kii booyadood aanu qaybinay waxayna tusayeen baahida rasmiga ah ee ka jirta deegaanka iyo sida abaartu ay u kulushahay. taasi waxayna dareensiisay inaanu mas'uuliyad labaad qaadno oo intii markii hore aanu bixinay inta itaalka jaamacadda iyo dhakhtarka iyo Dr. Adnan Ismaaciil oo runtii hamigan iyo dadaalkan iyo deeqdan bayada ay ka timi ayaa waxay aadni garatay in laga badiyo afarkii hore oo la bixiyay. maanta 39 booyadood baa in hareer taagan oo hadda baxaya. waxaan la shaqaynayay barasaabka gobolka Hawd iyo maayarka ka waxaan leenahay ilaahay ka jisaysiyo Dr. Adnan umadaana ilaahay biyaha ku afco ilaahayna abaarta naga soo jabiyo. Axmed Darajo oo kamid ah gudida abaaraha ee gobolka Hawd xildhibaan Cumar Xaaji Maxamed oo kamid ah golaha deegaanka degmada Baligubadle iyo qaar kamid ah maamulka Edna Adan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. biyo dhaamiska dalkoo dhan ka jira runtii waa midaan jaamacadaha dalkana aan looga baran. jaamacadda Adna ay tahay jaamacaddii ugu horeysay ee deeq noocaas oo kala soo gaarsiisa gobolada ay abaaruhu ka taageen. Victoria Adna iyo bahda jaamacadda iyo dhakhtarkaba runtii waan uga mahadnaqnaa si weyn anagoo ka wakiila gudida abaaraha gobolka Hawd. deeqda aynu soo gaarsiisay iyo sida fiican ay u soo jaangoysay iyo goobaha oo ay jaamacaddu ay ka qayb qaadatay in goobaha laftigooda ay jaamacaddu ay soo qortay iyadoo taa laftigeeda aan ku hambaliyeynayo. runtii saaka waxay noo qorshaysan in aynu gaarsiino 8 goobood. 8 goobood waxay kala yihiin Baligubadle oo aynu ugu talagalnay 10 booyadood, Gumburaha oo aynu ugu talagalnay 6 booyadood, Baargo oo aynu ugu talagalnay 4 booyadood, Warta oo aynu ugu talagalnay 4, Jabaaqo 3, Darfacle 3, Habaasweyn 3 booyadood iyo goobta ugu dambaysa oo ah Qalax oo aynu ugu talagalnay 6 booyadood. waxaynu ku dadaali doonaa insha Allah inay gaadho deeqdaasi cidda u baahan in aynu hubino oo aynu mas'uuliyad ka saarno inay dhammaan wada gaadhay dadka oo si siman ay u wada gaadhay. waxaan halkan uga mahadnaqayaa Marwa Adna Adan Ismaaciil oo na soo gaarsiisay deeqda biyaha oo mataqaanaa aanu ka gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Adna mudane Mustafa Xasan Daahir. waxaan leenahay deeqdaas weyn na soo gaadhay xilli loo baahan yahay baanay mataqaanaa na soo gaadhay. waxaan leenahay Allah jazakallah khayr ilaahay ka abaalmariyo. intaasi kadib booyadaha biyaha ah ayaa u qaybiyay xaafad tuulo ilaa ugu dambeyn ay gaadheen xarunta gobolka Hawd ee Baligubadle. intii deegaanada aanu maraynay waxay indhaha iyagu dheehanayeen dhul abaartu saameyn xoogan ay ku yeelatay carruur iyo haween wadooyinka hareerahooda taagan oo biyo doon ah iyo kuwa u soo arooray qoysaskooda
si ay biyo ugu soo dhaamiyaan. dadkii aanu la kulannay ee deeqda biyaha la gaarsiiyey ayaa u mahad celiyay Adna Aadan. qolo walba waa taa naloo shubay taangigii qaar kale naloo shubay qolo walba saasaa nalooga duubay aad baad u mahadsantoonu kuu mahadnaqnay ilaahay khayr ha ku siiyo khayr Allah ha ku siiyo halkaad ka soo saartay ilaahay khayr ha kuugu bedelo yaa edda ilaahay xashkana ha ku geeyo dhow inaad lacagtii xashka noo soo siisay waa naloo sheegay si sharaf la maanta la igu shubay biyihii taangigii waa la buuxiyay uu iga madhnaa ilaahay baa mahadle marka labaadna Adna mahadle halka ka soo saartayna ilaahay ha ugu bedelo wax wanaagsan way mahadsan tahay biyihii koowaad oo la ii shubay weeyaan ee bilaashka ay soo gaar mar walba biyooyadu way yimaadaan xaafadda laakiin way dhaafaan halka waxaan ku gudoomaynaa booyo biyaa oo noo soo dirtay Adna Aadan dhakhtar oo ah 5 booyo ka kooban oo una gudoonsiinayo Mustafa oo jaamacadda Adna ka gudoomiye ku xigeen oo hore noo gudoonsiyay 6 booyood oo hore ay noo soo dirtay Adna Aadan waanu ka gudoonay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay marwada Adna Aadan waxaan leenahay waad mahadsantahay waanu oomanahay haradu nahaya marka biyaha noo keentay waad ku mahadsantahay umadu way oomantahay dhammaan deegaanku ka sameeyay ilaa iyo hawd iyo halkan aan joogno oonkii abaartu bay simantay ilaahay tiisa lagu dhargaa laakiin Adna waxaan leenahay waad mahadsantahay haddaan waa tuulaha Jabaaqe gudoomiyihiisii 3 booyada la gudoomay ana qaybiyay abaartu wadanka ka jirtay يبيلال ما لها شاب أركب يمكن ما هيصير روب واحد يقول بيشوف شيء تملات. واعي دروس بيرشة تلفزيون كيونيفرسال هرقيسة.